war cusub saaxiibayaal maxaa ka soconaya qaybo ka tirsan gobolka Hiiraan miyaad la socotaa in deegaanka miir dhacay ee hoostaga magaalada Matabaan ee gobolka Hiiraan maalintii labaad uu si toos ah uga soconayo shir dib u heshiisiin ah oo la isku hor keenay isla markaana maamulka gobolka Hiiraan u suura gashay inay gogol wada fariisiyaan beelo Soomaaliyeed oo colaad xoogan ay deegaankani ku dhex martay beelaha Agoon Cabdalla oo xawaalo hoostaga iyo sidoo kale beesha la yiraahdo Bah Ina Xasan oo cayr ah ayaa halkan lagu nabadaynayaa maalintii labaad ayayna nabadayntan gashay waxaan rabaa inaan kula wadaago xaaladihii ugu dambeeyay halka ay xaaladdu nabadaynta ah ee beelahaasi ay marayso iyo sidoo kale dadka ka shaqeynaya intaan guda galin fadlan muuqaalkan lay garay share garay hadii aad jeceshahay nabadda aragtida aan qaybta hoose ee comment-ga noogu reeb soo dhaw daawade halkan oo aan maalintii labaad aan ku suganahay waa deegaanka miir dhacay ee hoostaga magaalada Matabaan ee gobolka Hiiraan halkan waxa maalintii labaad si toos ah markaas uga soconaya shir nabadayn ah oo maamulka gobolka Hiiraan bilooyinkii la soo dhaafay uu ka shaqeynayay shirkan waxa la rabaa in lagu dhaqo isla markaana lagu mayro colaad walba oo halkan ka taagneed deegaankan waxa uu ahaa xilli deegaan laga maato isla markaana qof walba qorigiisa uu keebla yuuro leeyahay laakiin maamulka gobolka Hiiraan waxay go'aansadeen in dadka beelaha walaalaha ah ee halkan wada dega inay nabadda markaasi ay ka wada shaqeeyaan isla markaana nabad ay ku soo dabaalaan beelaha halkan wada dega ee Agoon Cabdalla iyo Bah Ina Xasan ayaa maalintii labaad halkan nabadayn markaasi looga wadaa maamulka gobolka Hiiraan oo ugu horeeyo gudoomiyaha gobolka Muuse Salaad Weheliye saraakiil ciidan iyo sidoo kale maamulada magaalooyinka Matabaan iyo Galijir ayaa si weyn uga shaqeynaya in nabadda halkan ka jirta ama markaasi ka socota aysan fashilmin maalinta biri ah waxa la filayaa in halkan lagu soo gabagabeeyo shirka nabadaynta ah ee beelaha Agoon Cabdalla iyo Bah Ina Xasan oo markaasi halkan la rabo in mag lagu kala qaato isla markaana dadkaas walaalaha ah ee dhibaatadu kala gaartay gacmaha ay isgeliyaan isla markaana nabad lagu wada noolaado maamulka gobolka Hiiraan bilooyinkii la soo dhaafay waxa uu si weyn uga shaqeynayay sidii dadkan aadka u tirada badan ee labada dhinac ka socota markaasi uu halkan isugu keeni lahaa ugu dambeyn shalay ay suura gashay maalintii labaadna shirka nabadaynta ee deegaanadan ayaa wali soconaya wixii ka soo kordha daawade iyo sida uu shirkan u soo gabagaboobo iyo marxaladaha halkan ka dambeeya wararkeena iyo barnaamijyaadkeena dambe ayaan idinku soo gudbin doonaa fadlan muuqaalkan like gareeya share gareeya aragtidiinana qaybta hoose ee comment-ga inoogu